waxaa daawadeen hadda khadka si toos ah ugu jira gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Cabdi Jaamac ugu horeyn waan ku soo dhaweynayaa gudoomiye si aad u aragtaa kharashaadka miisaaniyadda sanadka 2022 loogu daray dhalinyarada Somaliland. walaal waa mahadsantahay adiga iyo bahda Horiyaal TV waan salaamayaa salaan kadib walaal soo la socono waxa weeye sanadkii saddexaad waxa miisaaniyadda lagu daray sanduuqa dhalinyarada horumarinta dhalinyarada oo madaxweynuhu February bishii 2020 uu waxa weeye ku aasaasay wareegta madaxweyne sanduuqa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay oo loo aasaasay in lagu horumariyo dhalinyarada Somaliland oo shaqo la'aan badan oo baahsan ay ka jirto waxa la sheegay in laga shaqeyn doono sidii kor loogu soo qaadi lahaa wacyiga iyo shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Somaliland laakiin waxaanu arkaynaa ilaa imika in aanay sidii loo sameeyay aanay wax hawl oo sanduuqaas qabtay aanay jirin sanadkii saddexaadna loogu daray miisaaniyadda oo waliba gaaraysa $235,000 amba 2 bilyan oo shilinka Somaliland waxaan anagu aaminsanahay xisbi ahaan maalintii la aasaasay sanduuqan xisbigu uu ka hadlay in magaca dhalinyarada Somaliland ay cid gaar ku shaqeysato cid gaar lagu masruufo waxaanan u aragnaa oo de ummaduba arkaysaa in sanduuqii oo 2 sano hore ilaa imika jiraan wax horumar oo laga gaaray aan jirin sababtii loo aasaasina aan ilaa imika jirin madaxweynuhuna 2018 $200,000 buu ugu shubay sanduuqa horumarinta dhalinyarada wax alla wax isna lagu qabtay aan jirin waxaan anagu aaminsanahay cid gaar jeebka ku dhacdo dabagalna waan ku haynaa waana soo bandhigi doonaa insha Allah dhawaan xukuumaddu waxa ay sheegtay in kharashaadka lagu horumarinayo dhalinyarada marka idinku ma waxa diidantiin horumarka dhalinyarada Somaliland. walaal waa mahadsantahay sidaan ku sheegay waxa weeye horta anagu waxaan xisbi ahaan waxaan u nahay inaan mar walba dawladda saxno waxaan u hadalnaa afka dhalinyarada ku hadalnaa waxaan ku hadalnaa afka dadka aan hadli karin ma ku hadalnaa sanduuq buu madaxweynuhu tilmaamay inuu dhalinyarada u sameeyay $200,000 buu mar 2018 ku shubay saddexdii sano u dhameysana iminka miisaaniyadii wax kan u dhameysay lagu daray tan ay golaha hortaala $2 bilyan loogu daray ama 2 bilyan oo shilinka Somaliland lagu daray ama $235,000 loogu shubay ilaa iminka waxaan anagu aaminsanahay walaal inaan waxba lagu qaban doonin lacagta xataa sanadkan lagu daray sababtu waxa weeye 2 sano horaan soo aragnay wax lagu qabtay ma jirto lacagtii hore madaxweynuhu ku shubay wax lagu qabtay ma jirto anagu waxaan mar walba aaminsanahay oo u taaganahay inaan dawladda waxay khalad sheegno marka waana ku adkaysanahay xisbahan waana aaminsanahay in cid gaar lagu laalusho taasina way iska cadaan doontaa walaal maxay tahay ka xisbiyaan talada aad soo jeedinaysaan ee ah maamulidda iyo maareynta kharashaadka loo qoondeeyay dhalinyarada walaal anagu inta waan hadlaynaayo waxa weeye taladeeda tusaalahayga 4 sano ee xukuumaddu jirtay waan hadlaynay laakiin dadagihii alla waansanay xukuumadda iyo dadkeega u shaqeeyaba uma arkayaan waxaan sheegano inay yihiin wax la taaban karo maanta bulshadu way u jeedaa walaal sanad walba cashuurtu way korodhaa shaqo la'aantu way korodhaa sixir bararku kordhaa maciishadii maanta aynu arkayna walaal wixii kale aynu ka noolayna waa ka kordhay xukuumadda maanta joogtaa walaal waxay ahayd inay arimahan aan ka hadlayno ee dhalinyarta ku habsaday oo ah mustaqbalkii dalkan inay ka shaqeyso waxay ahayd sanduuqa la sameeyay in wacyigelin laga shaqeeyo in dhalinyarada shaqo abuur loogu sameeyo laakiin cid alla cid daba galayso meel ay galaysaa lama oga waxa loo baahan yahay walaal accountability and transparency in gudiyadii komishanadii maamul wanaaga iyo ka hortagga komishanka musuqmaasuq inay walaal waxaan ka shaqeeyaan baxeed walaal 4 sano imika dawladda u dhamaatay ma aragtay cid loo xidhay musuqmaasuq ma aragtay cid shaqo looga yeeri anagu waxaan aaminsanahay xukuumaddan inay ka dhigatay mashaariic inay magaca dhalinyarada iyo waxyaabaha horumarkooda inay ku soo qaadato marka walaal taladeedu waxa weeye mar walba madaxweynuhu uu magacaabay waa inuu ka daba tago waa inuu isla xisaabtan ku sameeyo waa inuu daba galo halka ay wax u marayaan anagu xisbi ahaana insha Allah ta'ala marka talada xisbi dalku uu xisbigu yimaado waxaan awood saari doonaa in waxyaabihii dhacay oo dhan laga daba tago la iskaga daba hadhmaayo dadka magaca dhalinyarada ku shaqeysa laga daba hadhmaayo dadka horumarka dalkan ay jeeb gaar ah ku dhacdo ee aynu ognahay cid ay yihiin laga daba hadhmaayo aad iyo aad walaal mahadsantahay abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa
dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Daha Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka moobilkaaga kadibna raadi Daha Plus